أنا جب خلاص وحق قبسن كرين بمليه هو يمليه ولا المليه ولا ريال يسوع جرجار يسوع عاوي وحي الله أنا وين أنا جيدنا والله يسكن عي إلهي أمر كيسة صداسا ولا له أيها هو الشيء طاي وحرجيني ولا ريال نتسوع عاوسين يسوع جرجارتين tiiraanyada iyo murugada ka socota hooyo Khadra Cilmi Faarax waxa ka keenay xaaladda caafimaad ee adag ee gabadheeda Xamda Aadan Cali ay wajahayso taasi oo da'deeduna ay tahay 10 sano jir waxay ku sugan tahay xaalad caafimaad oo gurmad u baahan kadib markii ay gabadhani ay fadhiisteen kaliyaheedii waxay ahayd gabadh rajo ka qabta mustaqbalka waxaana gabadha yar laga keenay degmada Boon ee gobolka Salal waxaana hadda kaliyaha loogu dhaqaa magaalada Jigjiga taasi oo qoyska haynteedu ay yartahay duruufo nololeedna ay la daalaa-dhacayaan hooyo Khadra waxay bulshada gobolka Awdal iyo muslimiinta Soomaaliyeed ka codsatay inay dar Ilaahay u soo caawiyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم waxaan ka salaamayaa ummadda Nabi Maxamed ee Islaamka ah waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waxaan inaga codsanayaa aniga oo Khadra Cilmi Faarax ilmo yar oo iga bugta oo iga dhibaataysan oo ay kaliyuhu iga fadhiisteen oo 17 jira oo aan dhakhtarka ku hayo Jigjiga oo halkan la iga gudbiyay oo Jigjiga geeyay bishii saddexaad labadeedii baan geliyay ilaa xilliga halkaas aan ilkaha ku sita ku haysta aabaheed uu waalan yahay oo maxay ahayd dadkoodina way iska naceen anigana dadkayagu dad ii diran oo wax ii qaban karaya ma aha cid Ilaahay abuurtay oo Ilaahay ahayn uu sugayaan ma jirto ilmahaasna halka ku haysto ummadda Islaamka ee dhakhtarka aan ku hayo ee Jigjiga ayuunba intaana gacantaygu hayay 6 bilood aan hayay walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inantaa waxa leeyahay kalida bidixdu walaalayaal way baaba'day kalida kalena way fadhidaa labadaba way fadhiyaan xanuunkaana baabi'iyay ilmahaas waa khalaas waxaan ku jala ma hayo waxaan dhakhtar kaga bixiyo ma haysto waxaan kira iskaga bixiyo ma haysto Soomaaliland baan ka qaaday wadankayga ma joogay wadan kale aan joogaa marka waxaan idinka rajaynayaa insha Allah walaalayaal oo inaga doonayaa inaad caawisaan kalibaana la iiga baahan yahay inaan geliyo kalina ma haysto lacagna ma haysto marka walaalayaal taasaan inii soo gudbinayaa inaad iga caawisaan ummadda Nabi Maxamed ee Islaamka aan soo bandhiganayaa walaalayaal qolom male qabiil male anna qolom male qabiil male dad Ilaahay baan iska nahay aanu bukaan baanahay Ilaahay ma baahda waa Ilaahay aanu marka hore bukaan baan iska ahaa bukaan la iska nacay baan ahaa aqal hoostii baan jiifay dhiikar baan lahaa macaan baan lahaa muddo 24 sano waan dhacayo gidaarkan madaxa la dhacayay waan caymadii buurahan galayay cidinay ma soo qabsanin cidinay ma raadsanin ilmahaygina saasay igu dul noqotay dib weyn baalka iga haysata wax allaala wax iga caawiyo Ilaahay hayna ma haysto marka walaalayaal imka ilmihii oo aysan halkay kaga himatay sida ay soo hooyad maad naxdayday soo haysa 10 habeen baan halka imka hooyado jooga cid caawisay cid gargaarta midna ma haysto jil iyo jiijid midna uma hayo arinteedu waa emergency daway u baahan tahay wax kasta u baahan tahay aniga markaan saaweega badhiga igu kacay macaanka igu kacay aniga ba khalaas waxba qabsan karin bamaliyo hooyo maliyo walaal malihi walaalayaal isoo gargaaray soo caawiyo wixii aan lahaana way naceen aniga iyadana waa la iska nacay Ilaahay amarkiisa sidaasan walaalaha ayaan hawshay u tahay waxaan rajaynayaa walaalayaal inaad soo caawisiin isoo gargaartiin wax isoo qabataan kali mashruuceeda waa la garanayaa gelin haday noqotana waa la garanayaa kharashkeedana waa la garanayaa waxa la yiri kalidii hadaad haysato $1,000 baad bixin haddii aadan haysan ka badan marka walaalayaal haday jal tahay haday kali gelin tahay isoo gargaar waa 17 jir ka dhacay mustaqbalkiisa halka iiga ooyay habeen iyo maalin waa inan aniguna waxba ma haysto war ma hayo walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saasan